war degdega madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markan waxa uu ku guuleystay inuu si toos ah u kala furfuro xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ayadoona markan garabka mucaaradka uu ka baxayo hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo bilooyinkii la soo dhaafay si weyn hoos ugu dhigay mucaaradnimadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale kulamadii iyo fadhiyadii uu la yeeray jiray xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka hadalhayntii Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee mucaaradnimada filla Soomaaliya bilooyinkii la soo dhaafay si weyn ayay hoos ugu dhaxday ayadoona markan ay u muuqato in maamul weyn oo si weyn ay ugu tashanayeen xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo banay doono garabkooda si toosan ugu beeri doono garabka filla Soomaaliya warar iyo warbixino la helay ayaa tilmaamaya in waan iyo sidoo kale hadallo u dhaxeeyay oo bilooyinkii u dambeeyay u soconay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay hadda soo gaartay meel gabagaba sidoo kalena oo marayo wada hadalku meel wanaagsan Axmed Madoobe ayaana lagu wada in maalinimada beriya uu soo gaaro iyo wixii ka dambeeyay magaalada caasimadda Muqdisho sida wararka iyo sidoo kale xogaha dheeraadka ay xilligan ay nagu soo gaarayaan mucaaradka Soomaaliya ayaana si weyn u doonayay inay isku haystaan labada maamul ee sida weyn uga soo horjeeday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayadoona maalmahan shirarkii ka dhacayay si weyn la isku weydiinayay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu ka gaabsaday balse xoga dheeraada ayaa banaanka u soo baxay kuwaas oo sheegaya in bilooyinkii la soo dhaafay Axmed Madoobe iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya ay si weyn isku wateen sidoo kalena ay soconayeen wada hadallo u dhaxeeya labada dhinac ugu dambeyntiina soo gaaray in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo yimaado magaalada caasimadda Muqdisho Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaana tan iyo markii 2024 dib loogu doortay magaalada Kismaayo waxa uu tiraka dhowr jeer oo kulamo u la qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligan waxa la warinayaa in labada nin ay si weyn iskugu soo dhawaadeen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaana si weyn u doonaya in dawladda Soomaaliya ay xilligan hoos u dhigto arinta gobolka Gedo hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaana markan la soo warinaya inuu doonayo inuu wada hadal u la galo dawladda federaalka ee Soomaaliya ka gadaal markii uu si weyn u ilgala waayay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka asagoona markan u muuqanaya inuu si toos ah u banaynayo garabka saaxiibkiisa Saciid Cabdullaahi Dani iyo guud ahaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka soo dhawaada saaxiibada dawladda maqalka la gareey qaybta soo komitiga aragtidiina nagu la wadaaga saacad haddii aynu ku bilowno saacadii la soo dhaafay waxay soo tarayay wararka tilmaamaya inuu wada hadal u soconayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wada hadalladan ayaana waxa lagu qaboojinayaa xiisadda labada dhinac oo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kala dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaana si adag Axmed Madoobe dagaal ula gashay ka gadaal markii sanadkii 2024 oo dib iskugu doortay magaalada Kismaayo ayadoona ilaa hadda dawladda Soomaaliya aysan shaacin inay aqoonsatay madaxtinimada madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Axmed Madoobe ayaana waxa la sheegay inuu xilligan si weyn u ilgara waayay mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibkiisa Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kalena doonaya inuu dawladda Soomaaliya oo la galo wada hadal siyaasadeed asagoona si weyn u doonaya in guud ahaanba gacan ku haynta gobolka Gedo ay ku soo wareejiso dawladda Soomaaliya asagoona uu diyaar u yahay markan inuu la shaqeeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland ee Soomaaliya ayaa sidoo kale warar la helay waxa ay tilmaamayaan inuu ku soo wajahayo magaalada caasimadda Muqdisho Axmed Madoobe ayaana xilligan hadii uu ka baxo garabka mucaaradka waxa uu mucaaradku ay luminayaan garab weyn oo siyaasadeed maadaama ay si weyn ugu tashanayeen maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo ayaga kuwa loolanka adag xilligan kula jira dawladda federaalka ee Soomaaliya hase yeeshee bilooyinkii la soo dhaafay ayaa Axmed Madoobe waxa uu hoos u dhigay mucaaradnimada iyo sidoo kale loolanka uu kula jiro dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dhaliilihii sida joogtada ugu jeedi jiray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kalena waxa gaabis xoogan oo ku yimaada kulamadii iyo sidoo kale ka dhex muuqashadii Axmed Madoobe oo sida weyn uga dhex muuqan jiray xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka